السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال إذا الأهانتين بمل والبضنا دعوتان هل كان ورايال تي في حرنتا إنه كلنا هاي مقالة مقدشة. داوديال واحد كسر دواتان ورك عالم كواحد إذن للدياران وأهمير الشيخ محمد كشكا. رئيس الوزراء دولة فدرالك الصومالية مدن حسن علي خيرية صدن سنة كدب دلك كسر دويه هيئة USAID. waxaana warbixintaasi noo haya wariyahayna Cabdiraxmaan Saciid Xasan Talante. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa qaabilay maamulaha guud ee hay'adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaan USAID Mudane Martin Green iyagoo si wadajir ah ugu dhawaaqay dib u howlgelinta xarunta USAID ee Soomaaliya oo la xiray sanadkii 1991 Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Mudane Martin Green ayaa ka wada hadlay dadaalada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ugu jirto dib u kabashada dhaqaalaha deen cafinta iyo dib u habeynta hanaanka maaliyadeed ee dalka si loo xaqiijiyo kobaca dhaqaale oo waara Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa tilmaamay in xukuumaddiisu ay mudnaanta koowaad siinayso ummadda Soomaaliyeed loona gaarsiin lahaa isku filnaansho iyo dib u soo kabasho dhaqaale isla markaana ay soo dhaweyso wada shaqeynta hay'adaha horumarinta caalamiga ee Mareykanka magaalada Muqdisho dalka Soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay inaad aqbashay casuumadii aan kugu casuumay inaad soo booqato markii aan kuugu imid Washington waxa kale oo aad ugu faraxsanahay in hay'adda gargaarka Mareykanka ama USAID inay maanta iyaduna halkan xafiis ka furatay inaad casuumadina soo aqbashay halkan aad xafiis ka furateen si aad dadka Soomaaliyeed si toos ah ugu gargaartaan waa idinkaga mahad celinayaa sidii markaan Washington imidna aan ku arkay haddana aan ku arko xiriirka dawladda Mareykanka iyo Soomaaliya wuxuu marayaa meeshii ugu wanaagsaneed taasoo ay sabab u tahay wada shaqayntii aan yeelanay labadii sano la soo dhaafay iyo dib u habeynta maamul dhaqaale amni siyaasadeed oo aan dalka ka wadno waxaan aad ugu faraxsanahay joogitaanka aad maanta nala joogto iyo sida aad mar walba u garab taagantiin dadka Soomaaliyeed waxaan aad ugu mahad celinayaa safiirka iyo shaqaalaha safaaradda ka shaqeeya oo iyaguna runtii dadaal badan muujiya si wanaagsanna dalkan ugu gargaara waxaan ugu dambeyntii ugu baaqayaa safaaradaha kale inay idinku daysadaan horumarka aad samayseen iyo joogitaanka halkan aad joogtaan iyo maalgashiga aad dalkan ku sameynaysaan ayaan iyagan ugu baaqayaa dhanka kale Mudane Martin Green ayaa ra'iisul wasaaraha la wadaagay howlaha ay hay'adda USAID ay ka wado Soomaaliya iyo qorshayaasha lagu dardargelinayo mashaariicda lagu taageerayo danyarta Soomaaliyeed si ay uga baxaan saboolnimada iyo shaqo la'aanta una gaaraan isku filnaansho dhanka dhaqaalaha. This inauguration is not only a symbol of the strengthening ties between our two countries, but it is also a symbol of Somalia's progress. We open this mission because the people of Somalia and the leadership of Somalia have shown a commitment to pursuing a more citizen-centered, more resilient, and more self-reliant future. And at USAID, when we find leaders who are willing to take on the tough choices and the reforms that are necessary to pursue self-reliance, then we want to walk with them along the way. And that is what opening a mission is all about. The government of Somalia's reform efforts, based on a sincere commitment to peace, citizen-responsive governance, and the expansion of economic opportunity, have built optimism across this country. There is optimism that a brighter day lies ahead. I am delighted to be part of today's special ceremonies, and I am hopeful that this small step that we have taken will continue to build this positive momentum and preserve hard-won development gains. Of course, it is the people of Somalia who also deserve credit for the progress that we are seeing. Earlier today, I attended a trade symposium showcasing small businesses here in Somalia that are supported by USAID. It was at that session, that symposium, that I caught a small glimpse of Cabdiraxmaan Saciid Xasan Talante, Royal TV, Muqdisho.